walaal waa fiicanahay waa Haye. dhowyahay ii warsaata Alxamdulilah walaal. Magacaaga ii sheeg. alxamdulilah walaal cariish baa la yidhaahdaa Cariish. cariish xaadlaa la yidhaahdaa Imsaa jirta Cariisha? 4 40 maxaa kuu dheer? saradan adigu ii dheer dhowr biyood baa dheer waxban ku dar Haye Cariisha, sidee lagu hayaa? walaala waa xanuunsanaa inta muddo ahayd waan xanuunsanaa intaas wareega iyo dhabarka ayaa liiga hayay waa iska xanuunsanaa muddo dheer baan xanuunsanaa maalinba farmasi baan tagaa maalinba meel daawo lagu gado baan daawo ka qaadan jiro mar walba daawaan iska qaadan jiro waa iska gadan jiro waa cuni jiro waxaan isaga garta caawa lama ah Haye. daawada un baaba anigii baaba daawo socotaa noqda Xanuunkii wax isbedel xanuunku wax isbedela ma samayn anigana lacagta iga dhammaatay mana dawoobin dawadii guriga waa dhoobanta bokusya dawaa hayaan ma fahanta marka maalin dhaxaanta meel farmasiya daawo u doontay buu yarku wuxuu igu yidhaahday wiilkii meesha jooga wuxuu waa inaad dhakhtar tagtaa haddaad intaasoo jeer daawo gadatay oo dawada wax ku dari weyd dhakhtar aad aniguna weligeyba dhakhtar ma aadin ma garad wiilkii baa markay soo tilmaamo igu yiri nin dhakhtar ah halkaas joogo isbitaal baa jiro halkaas aado waa lagu shaybaaraya shaybaar baa lagaa qaadaya marka saasaan kuugu imid maanta soo dhawo Cariishay. Waxaa ii sheegtaa calaamadaha xanuunka goorma kugu bilowday goorma isku aragtay xanuunkan ilaa intee muddo la eg buu ku hayay? muddo hadda dhowr bilood hadda saana xanuunkaasi halka ka dareemay sidee lagu qabanayaa dhabarka markii laga soo tago? Qandho ma leedahay? qandho badan ma lihi laakiin marmar bay qandhadu ay qabanaysaa kaadi ma ku gubaysaa markii? caadi haa gubitaan xanuun bay leedahay madax wareer ama dekaan ma leedahay? madax wareer badan ma lihi laakiin qandho jirka iga haysa iyo hayado ay xanuujinaysa iyo gubitaan iyo fakasho iyo aan la ordiyaan leeyahay calaamadahaasa intii muddo ahayd aan lahaa wax jir xanuuna ma leedahay ama maya lafa xanuun iyo ma leedahay? lafuhu marmar waa iska kay xanuunaa laakiin iguma badno xanuunada karooniga ama xanuunada maaragtay dadku la nool yihiin sida dhiigkarka sonkorta waxa qabtin ma jiraan? maya waa ka nabad qaba waxaan hadda isku horta ismaba baarin oo dawaa dhakhtarba maba teginba laakiin waxaan hadda isaga warqabaay ma jiraan Cariishay waxaan kuu dirayaa shaybaar baan kuu dirayaa waxaa lagaa qaadayaa kaadi baa lagaa qaadayaa waxaa lagaa qaadayaa dhiigag kala noocyaa baa lagaa qaadayaa kadib jawaabta soo baxda waxaa ku go'aamin doonaa yacni xanuunkaagu siduu noqdo iyo xanuunkaaga yacni ku haya aan ku ogaan karnaa sidaa darteed waxaan ku siinaynaa yacni markaan ogaano xanuunka kadib waxaan kuu qoraynaa dawooyinkii ku anfici lahaa ama kugu anfici lahaa xanuunka haddana waxaan kuu dirayaa qaybta shaybaarka dhiigagaasaa ii soo qaadaysaa marka xanuunkayga ma dhiigagaa laga ogaanayaa shaybaarkaa laga ogaanaya markii shaybaar la maro baa maaragtay xanuunkaaga waxaa la ogaan karaa daawada ku habboonay shaybaar la-aan macquul ma noqonayso waayo 4 dhiig iyo waxaan kuu diray kaadi shaybaarka tag iska soo qaad jawaabtoodana ii soo celi markii jawaabtooda ku dhammaato ii soo celi waa mahadsantahay. A few moments later. jawaabii baa kuu soo baxay? waa kuwa waa gabdhihii dhiigagii iga baareen iyo kaadidii Cariishay markaan jawaabtaada akhriyay ama jawaabta dhiigagaaga markaan akhriyay waxaa ogaaday infection badan inuu jirkaaga ku jiro weliba infectionka loo yaqaano UTI-ga ama infectionka ku dhaca wareega kaadi mareenka kaadadaadu infection fara badan bay leedahay dhiigaaga infection xoogaas maaragtay waxaa ku yar jira infection baa isaga laftarkiisa ku yar jira sidoo kale
hadaayo waxaan kuugu daray cabirka dhiigga ama HB-ga kuugu daray isaga laftirkiisu wuu fiican yahay, aad buu fiican yahay, dhiig la-aan kuma hayso. hadda waxa kuugu daran waxa weeye infectionkaas UTI-ga loo yaqaano oo ku dhaca kaadi mareenka iyo agagaarkiisa. marka isagaan dawo kaaga qorayaa, waxaad samaynaysaa dawadaas 7 days baa soo qaadanaysaa. 7 days markay kuu dhammaato kadib baa igu soo laaban doontaa. markaasaan waxaan fiirinaynaa dawadii in maaragtay ay xanuunkii baabi'isay iyo in kale isbeddel wixii dhacay 7 days kadib baan fiirinaynaa. haddana dawaan kuu qorayaa, dawadaas waxaa la sii aadi doontaa farmashiga la sii aadi doontaa. goormaan kusoo noqonayaa? sanad kadib? 7 beri kadib. dawadu waa 7 beri. 7 beri kadib markaad soo dhamaysatid baad ii soo laabanaysaa. markaas waxaan fiirinaynaa xanuunkaaga. daawadaas farmashiga la siimo iyaga waa lagu sharixi doonaa, yarka farmashiga jooga kuu sharixi doona. 7 days ay kuu soconaysaa, ha kala goynin. yacni waxaa samaysaa dawadaas inaad qaadatid oo waqtigeedana aad ku qaadatid. sidoo kale ha samaynin inaad maaragtay farmashi tagtid oo aad antibiotic ama dawo ka qaadatid bilaa baaritaan. waxaa lagaa rabaa inaad dadka ka wacyigelisid in maaragtay ay iyagoo aan shaybaar marin ay sameeyaan farmasi tagaan oo dawooyin ay ka qaataan. adigu hadda muddo badan baa dawooyin soo cunaysay, waxaan ku yidhahdaa dawooyinkii kumaadan caafimaadin sababtoo ah xanuunkaaga lama ogeyn wuxuu yahay, lama ogeyn bilaa shaybaar buu ahaa. dadka ugu heeraaraysan bulshada, familkaaga, asxaabtaada, deriska iyo adiguba waxaad ku wacyigelisaa inay booqdaan dhakhtarka ka hor farmasiga intaysan aadin. halkaasoo shaybaar la maro, dhiigag laga qaado, sida haddaba jawaabtaada iyo xanuunkaaga loo ogaaday inaan u samayno. marka adigana fariin baa maaragtay dusha kaa saaran in maaragtay aan farmashiyo marka koowaad la aadin oo dawo laga qaadan bilaa maaragtay dhakhtar, bilaa shaybaar, bilaa wax dhibaato weyn bay kuu keenaysaa. hadda xanuunkaaga waa ogaanay already, waxaan kale dawadii kuga habbooneed waan ku siinay. waxaan rajaynaynaa inaad caafimaadid insha allah. wacyigelintaasna iyo fariintaasan inaad dadka gaarsiisid, adiguna hadda wixii ka dambeeya aad joojisid inaad farmasi wax antibiotiga aad ka qaadatid adigoo aan dhakhtar ka marin. haddii rabbi ilmo haddana walaal haddaan dawadan ku fiicnaado hadda aad siisay anaaba farmashi dambeba aaday. dadkana waa u sheegayaa haddii aan ku caafimaado waa u sheegayaa dadkoo dhan insha allah. farmashigan sii maro waa mahadsantahay. A few moments later. walaal dhakhtarka isoo diray. walaal waxaa lagu qoray 4 kaniini iyo 1 sharoobo. marka dawadaasaan ku siinayaa iyo qaabka u qaadan lahaydba. walaal kaniinkan habeenkii subaxii cuntada kadib min xabad baa laqaysaa, muddo isbuuc kuu soconaya. kaniinkan habeenkii subaxii min xabad baa laqaysaa, isaguna muddo isbuuc soconaya. kaniinkan habeenkii subaxii min xabad baa laqaysaa, muddo isbuuc kuu soconaya.
kaniinka habeenkii subaxii min xabad baa laqaysaa muddo isbuuc kuu soconaya kan keliya baa wuxuu yahay cuntada ka gadaal inta kale cuntada way ka horeysaa yacni kan keliya baa wuxuu yahay cuntada ka hor inta kale cuntada way ka dambaysaa kaniinkan cuntada ka hor baa isticmaalaysaa intaan adoo qatan baa minha subaxiina adoo qatan habeenkiina adoo qatan kuwaana cuntada kadib baa isticmaalaysaa markaa waa cuntid kadib baa isticmaalaysaa haddii rabbi idmo marka dawada saasaa u isticmaalaysaa insha allah xagee wiilka soo noqo yiri xagee kusoo noqonaya marka dawadu markay kuu dhammaato 7 beri kadib aad dawada soo dhamaysatid warqadahaana soo qaadanaysaa jawaabta dhakhtarkaad ku laabanaysaa 7 beri kadib halkaan imaan mayo halkaan maaha waa dhakhtarkaad ku laabanaysaa insha allah haddii rabbi soo dhawow